waxaa soo dhammaaday toddobaadkii shanaad horyaalka kooxaha heerka koowaad ee xiriirka kubadda cagta Somaliland ka wada garoonka Hargeysa Stadium degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa. Kooxda wasaaradda maaliyadda waxay 2-2 uga soo badisay kooxda wasaaradda ganacsiga. Kooxda xidigaha cirku waxay 3-2 uga soo badiyeen kooxda ciidanka gaashaan. Kooxaha ciidanka asluubta iyo dawladda hoose Hargeysana waxay wada galeen barbaro 2-2 ah. Kooxda ciidanka booliska ee Goodir waxay 4-2 uga soo badiyeen kooxda wasaaradda biyaha. Kooxda Waxool waxay 2-1 uga soo badisay kooxda wasaaradda caafimaadka. waxaana sidaas toddobaadkii shanaad horyaalka kooxaha heerka koowaad hoggaanka u haysa kooxda dawladda hoose Hargeysa kuna hogaaminaysa 13 dhibcood iyo 9 gool oo nadiif ah. dhanka gool dhalinta ciyaartoyda waxaa hogaaminaya Xamse Curiye iyo Khadiir Mustafa oo kooxda dawladda hoose Hargeysa ka wada tirsan kuwaas oo ku hogaaminaya min 6 gool. sidoo kale Amiin Xirsi ayaa 5 gool haysta isagoo ka tirsan kooxda ciidanka booliska ee Goodir. sidaas la mid ah waxaa min 4 gool haysta Maxamed Isqo oo kooxda ciidanka asluubta iyo Abshir Xasan oo kooxda xidigaha cirka ee magaalada Hargeysa. haddii toddobaadkii koowaad lagu soo dhaliyay 20 gool oo toddobaadkii labaad lagu soo dhaliyay 18 gool, toddobaadkii saddexaad lagu soo dhaliyay 19 gool, toddobaadkii afraadna lagu soo dhaliyay 9 gool, toddobaadka shanaad ee galabta soo dhamaadayna lagu soo dhaliyay 20 gool. sidaana wadarta guud shantii toddobaad horyaalka heerka koowaad ee caasimadda Hargeysa waxaa lagu soo dhaliyay 86 gool. haddaba toddobaadka lixaad ma ka goolal yaraan karaan mise waa ay ka goolal badnaan karaan shantii toddobaad goolashii lagu soo dhaliyay horyaalka heerka koowaad? waxay kula tahay adiga haddii alla idhaahdo. Axmed Taye Qaran, wararka Malcab, magaalada Hargeysa.